ra'iisul wasaare xamse cabdi barre walaalkay qaaliga ah waxaa maanta farxad ii ah in aan kugu soo wareejiyey xarunta cusub ee golaha wasiirada oo 2 sano u dambeysay dhismuhu ka socday oo haddana heer gabagaba ay marayso waxaan jeclahay inaad iga gudoontid maantay oo ah maalintii xil wareejinta anigana ay tahay maalintii shaqadii ugu dambeysay laakiin xafladda ay hadhow inoo tahay laakiin hadda ay hordhaci tahay inaan kugu wareejiyo xarunta golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaare soo dhawow waxaan ku rajaynayaa inaad ku shaqaysid halkaana kugu soo booqdo iyadoo shaqaynayso hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo soo dhawow ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay waa xarun runtii aad u weyn oo aad u qiimo badan isla markaana u diyaarsan in xukuumaddu ku shaqayso waxaan runtii rabaa inaan u mahadceliyo dowladda qatar ee walaalahan nahay oo dhistay waxaanan runtii mashaariic badan oo kale oo ay dhistayna waa jiraan waa ognahay waxaana rajaynaynaa insha allah in ay dhammaystiraan mashaariic kale oo fara badanna waa ka rajaynaynaa way mahadsan yihiin runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshan muhiimka ah ee waddankii iyo dowladnimadii lagu soo celinayo waan u mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada amniga ee runta sugay suurto geliyey in mashruuca intan leeg halkan laga dhiso waqti dhow aan la iman karin runtii aad iyo aad baa iyagana u mahadsan yihiin ilaahay iidankiisa annaga waxaa naga go'an mudane ra'iisul wasaare inaan marka ugu horeysa ee la dhammaystiro hawshan waxyaabaha ka dhidhiman inay soo degto xukuumaddu aniguna waan soo degayaa ilaahay iidankiisa meeshan aad igu imaan doontaa ilaahay iidankiisa aad u mahadsan